magacayga waa Cabdiraxmaan Shaafici Nuur aniga oo ku hadlayo magaca kambaniga Marine Avenger of Somali oo markabkan arkaysaan oo la dhaho MVS Trolla ama SM25 waa markab kalluumaysi ah dhalinyaro Soomaaliya iskala isku tagtay ugu tala gashay in kheyraadka badeena ka buuxa kaga faa'iideystaan wuxuu ku xirnaa markabkan dekada Muqdisho ankarkeeda banaankeeda wuxuu diyaar u ahaa inuu aado fishing waxa loo dhameystiray dhammaan fishing equipment waxa la yiraahdo qalabka fishingka lagu qabto oo dhan waxa markaas xaadir ku ah oo saarnaa kruuga oo laba qayb loo kala qaado qayb technician tahay qaybna fishing tahay qaybtii technician ee maamuli lahayd markabka haday tahay kabtankii chief engineer electric bosin oo dhameystiran waxa uu sugayay oo aan u diyaarinaynay waxay ahayd in aan u dhameystirno kruugi fishingka aadi lahaa ayaan ku jirnay processkiisa anigoo ah madaxa operationka company operation manager ka ahaa nasiib wanaag waxa dhacday markabkii inuu ku dhacay markab kale deeta markabka kale ku dhacay waxa uu gaay bruising badiina waxa yimid dabayl aad u xoog badan oo san xamili karin isaga inuu awood u lahayn inuu mara wadankeena nasiib wanaag taagag aad u waaweyn wax soo qaban kara wax soo jiidin kara ma haysano capacity-ga ay leeyihiin taagagaas dekada yaalo aad buu u yaryahay wuu ka soo dhaqaaqay dekadii ilaa iyo wuxuu tagay Cadala badii markay yara qabowdi wuu soo laabtay wuxuu ku soo dhawaaday Warshiq haddana way imaatay wuu laabtay wuu soo laabtay mar saddexaadkii habeenkii dambe oo 23 bisha ay ahayd 24 uu soo dhawaa abaarihii 11:25 markay tahay ayaa nasiib wanaag roobab imaadeen roobkii xoog yimaaday iyo dabaylihii madraadeed waxay kaliftay inuu meeshan ku soo dhaco oo xoog loo soo qaado dhaawac weyn baa gaaray gudaha dhan baa dilaacay biyihii baa ka buuxsamay wax alla iyo wixii dheega saarnaa ee fishing equipment-ga ahaa oo dhan badaa qaad waxba waa laga badbaadi waayay markuu inta soo istaagay subaxii waa berigii waxa ugu soo hormaray oo u imaaday waxay ahaayeen shacabka deegaanka Hirshabelle oo inta yimaaday isla markii waxa ku soo xigsaday oo akhbaartii ay gaartay Marineska ciidanka Marineska Hirshabelle isla markii iyaga la wareegay safety-ga nabadgelyadii haday tahay kruugi saarnaa oo nabadgelyo ku soo degay oo wax dhimasho aysan nagu imaan alxamdulillah shukri iyo haday tahay inuu qof kala aadin intaba safety ku dadaalay maanta waxaan kormeer ku imid dekadaha macmalka Hirshabelle xeebaha Hirshabelle waxaan ku soo caariyay markabka ujeedin oo company Soomaali uu leeyahay milkiilayaal Soomaali dhalinyaro Soomaali maalgashatay markab ay leeyihiin markabkii sida ay nagu wargeliyeen amba ay noo soo sheegeen 23 bishii ayuu ku soo caariyay markabkaani sida ay noo wadaageen xogta kabtanka markabka waday iyo shaqaalihii markabka saarnaa markabka sida ay noo sheegeen kabtanka markabka waday wuxuu ku xirnaa dekada Muqdisho angalka dekada Muqdisho ay ku xiraan asagoo ku xirnaa waxa ku yimid markab kale oo shisheeye markabkii ayaa jugsiiyay ka bacdi baroosinta ay u jartay baroosinki markuu jartay badii ay abaara habeenkii xilli ay jarto xilliga xagaageeda lagu jiray badda ay dabeelaheeda aad u badan yihiin ayaa badii kacdan sameysay dabeelihii kaceen sida darteed ay markabkii keligii iskiis kaga soo dhaaqay sida inagu sheegeen kabtanka markabkana injika muxtarka markuu gacshay waxa isla ekaaday dabeeshii xilliga markaas socotay cabirka xawaaraha ku socotay iyo xawaarihii motorka markabka ayaa islaaday sida darteed ay xakameey waayay markabkii saas ayuu ku soo caariyay wuxuuna ku soo caariyay dekada macmalka cilmicaan meel ka xagayso inta u dhaxayso degmada Warshiq tuulo la yiraahdo Hawaii sida ujeedadu waa markabka marka yaalo waxaan in badan aan uga mahad celinaa in badan gacansiinta taliyaha ilaalada xeebaha Hirshabelle oo in badan heerkan iyo wada shaqayntan soo gaarsiiyay dadkan Soomaalida caawiyay waxaan aadna uga xunahay in qof Soomaaliyeed hantidiisa dhibaato soo gaarto waa waxaan aad ugu xanuunsanayno dhammaan madaxda dawlad goboleedka Hirshabelle oo ugu horeeyay madaxweynaha dawlad goboleedka Hirshabelle iyo madaxweyne ku xigeenka anagoo aan ka sido baaq waxay aad ugu tiiraanaysiin xanuunka iyo dhibaatada soo gaarshata ganacsatada Soomaaliyeed oo markabkooda halkan ku soo caariyay waxna aysan ka qaban karin waana maasantii